koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kastiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay waxaa la yidhi dabbaa hooska nool weli aan cidiina dami karayn waradar dabkanadi ku baxayay sheegaysaan muxuu yihi abdulow baryaahu may ka baha waaytay dabaa hooska nool may dahishadatay dahi hooska nool adaase madi korna ku midowta war waxaa la yidhi qaladkuba shakhsigii ku kacay waa u qaabsami nin walbana inuu quman yahaa qoorta loo suray tukuhuna qaraabdoonis buu qaaqda la hayaa maantana rag laga quustayoo qayliyayaa jira haa runtaway lan weleeba meelisundhuma jidaan jara warnimayo 2 maalmoodba waxaa laga soo sheegayay Soomaaliland iyo Puntland dagaal Jubbalandna waa la isku burursanaya xaalka galmudugna ma sansaan qurxoona banaadirna buuq baa ka aloosan aad ku diideehee dabbaa hooska nool aan welina cidi damin haddii lagu yidhi war anigu waxaan idin leeyahay cadowga warmaha lala dhacaa lagu wareema oo la iska waafshaa kolkuu weerar soo yahay wanaag baa tolkaa lagu wadaa tii walaalnimo wehelkaaga lama gooyo iyo waxya kugu yaal Soomaaliya wanaag wixii ahaa wad wadacaysaan col wareemataystiya rogaal weerar soo celiya 30 sano dagaal baad wadaan aan waji lahayn war ma waalintiin soo aqligu idinma waantoob wareedahay war ma haysaane xog culus baan idin hayaa maanta hayehe intaad ka soo xogatay hogayey tubta iyo dheegi jiray hogadoo dhaafa oo xogtaasi waa imse kiilo war bu'aalamiye la xuray war dhagax ceelaa laga keenay lagu heshiiyey warnamiyow may ba dheegi jiray nin bay meeli bugta iyo dheegi jiri marka arees usuna dhagahaasa bug sharuur may ka siinay ka aale war dhagaxa markii hore shabaab ahaa la yiri kadibna markuu gacanta dawladda soo galay shabaab waa ridoobay dhahan dab iyo dhagax leeskuma dhiftee kala dhowraay aan maqli jira war dhagaxu maxooga wadaniinta ku biira warnamiyow dhagaha markii hore hoogaga wadaniinta ka dhax jiray jidlasin hiri ma aragnay wareedaa waa nala galgalateene xogtaan haynaa waxaasoo dhan waa ka weyntaayna dhagaysta waxaa la yidhi dawladda ingiriisku inay midowga Yurub ka baxdo Soomaaliland ku cadaadisay sababtana waxaa la yidhi dastuurka midowga Yurub waxaa ku qoran inaan dawlad go'day la aqoonsan karin sidaas darteed si uu Soomaaliland u aqoonsado ayaa ingiriiska lagu cadaadiyay inuu midowga Yurub ka go'o marka itiraafkii qowdan ku wareeray halkaas uu ka imaanayaa baa la yidhi war kuwii la safad dahargeysa ku calal qashay ciyaar magaca boolaha aryadaha anigu xogtaas xog ka weynaan idin haya waxaa la yidhi ra'iisul wasaarihii hore ingiriiska Theresa May inay iscasisho waxaa ku qasbay cadaadis ay saarta dawladda nabad iyo nolol war madeen cafiskay ku adkayda war haysan mala eeriyo koro artay aryaa haysan waa leexe ma ay walaa wax qaloocan faa'iido lahaayeen war aniguna waxaan maqlay in madaxweynaha Puntland Dani uu ku cadaadiyay madaxweynaha Mareykanka Trump inuu la kulmo Kim Jong Un ka Kuuriyada Waqooyi si nabadda adduunyadu aanay khalkhal u gelin wareer kalamaanow wali war lay sheegdama geegatana karyoonay kabada isku tawnaagateena warnimay aniguna waxaan maqlay in Axmed Madoobe uu ka dambeeyo khilaafka Itoobiya iyo Masar ee wabiga Niil sababtoo ah Itoobiya waxay taageertaa madaxweyne Farmaajo warana waxaan maqlay colaadii dawladda dheeraada ee Eritrea Itoobiya ka dhaxaysay in madaxweyne Xafso afjaray warana waxaan maqlay khilaafkii Khaliijka inuu waara ka dambeeyay war in dawladda Soomaaliya ay gelin xiriir ku jirta waxa ka dambeeyay yiri madaxweyne lafta gareen war aniguna waxaan maqlay kooxda kubadda cagta Manchester City 2 sano xiriir champion-ka laga ganaaxo inuu ka dambeeyay xiriirka kubadda cagta Soomaaliya wariyada warkiina waxaan ka dhihi lahaa hadal murana hagag muuqda iyo sheeka maraxaynta macna waxaan lahayn iyo warxumo madar la taagnaanta waa waxa maqaamliida biday maandhow beledkaane waxba sawirra muuqaala iyo music hay tumin muxibbiya salaanan mugleen hayla soo marin war la yaw hadda maqaam raadis ata kalamaan handhaha marto meelo kala marniyow war gooyo in sagaar la ay ku dhacda qadara ka dambaysa la yiri sababtoo ah sagaaradii Soomaaliya qadara qandaraas lagu sii maday saaqow maqaamka muqdisho nala reed markaad leedahay miyaadan daawan xalay doodii dhacdo la isku feeray warka iska gaabiniyo dad badan oo xanaaqsan sida Maxamudiin Darbo weynaa magaalada jooge yaan lagu darbayne warkaas war wiin ma meega kalamaan intii war sheegta ka dambe isla darbaanyo jireena waana nabad ka shalbahaayeen war Maxamudiin Darbo weyne marka
markii hore dooda asaa aayadaha qur-aanka ku furay markii dambena dooda dagaal uu ku soo xiray wixii meesha joogoo dhan sidii saama baalidii masdarba ku xaaqayne aryaadhaha muxudiin darba weyne xale muggi la yidhi nin oday haatee axaad u dagaalantay wuxuu yidhi adoo maartii lugu ahay maradaa hoos gaalaan meecayn adoo maartii lugu ahay maradaa hoos gaalaan meecayn haye war diinaariyaa dooda daadihinay odayaashana asaa iska hor keeni arooda tahliil shaabtaxaa ka mid ahaa dadkii dooda soo qaban qaabiyey waramadasha muqdisho iyo dooda qaranaa la yidhaahe toddobaad kastay dhacaysaa hayehee amaa dharbaaxadina joogta naqataa war nin la odhan jirayna bullaale wuxuu horay u yidhi marti dheragtay reerkii hadday maalka kula doodo midh subxaalan liyasow iyaba waar mushkilad maaha war doodaha gacanqaadka lagu sigtay ayaamahan waa soo kordhayaan brofesor doob iyo ugaas maxamed welina waa isku sigteen war brofesor boomaan guursidu ay bilaan dhoobanta war waxaasoo dhan waxa ka horreeyey madaxweyne muuse biixi waa kii faysal cali waraabe jaanada ku tuuray war doodahaas amal gaalka ay hoble kugobadow dukaankii faa iskaali leeraay inoo lihirwu saban ayaa kalubane aryaadhaha abwaan hore wuxuu yidhi masqaniinyayaa iyo libaax micida saaryaaba mara loo dilyaa iyo si kale loo macneeyaaba naf waliba mudday leedihi iyo maalin iyo saacad oo waa midaan muddadi loo makibay mirir la dhaafsiine hadduu moolku hoos kuu liqoo madaxu soo jeedo ambaduul aan maamuli jiraa igu masiiboobay maqal hooyadee daba martaan xari ku meershaahi adiguna majuusiga u tali marada kuu xaytay anna miiskiyaan taaganaha layna mari maayo warna macasalaamaan ku iri talana waa mawle aroo cabdulla shirib leen kuga ogaha ilaan gabaygana waa tiri taqaantaa iskiilow war nimanyahow masqaniinyayaa iyo libax maciide saari aan ku xasuustaye taliyaha booliiska puntland jenaraal muxudiin wuxuu yidhi haddii nabad iyo nolol gobolka mudug ciidanka haramcad keenaan ha ogaadeen annaguna waxaan u diyaarsannay ciidamada shabeel dadkuna waa ogyihiin meeshay kala joogaan shabeel iyo haramcad war jananka dawladda ka soo hor jeeda yaa sii garaadada uu ku hanjabay war janankuma sidii caaruufa la agoobay war jananka liibiya ka dagaalamaya jenaraal xaftar waxaa la yidhi waa laga tabarroonaadayoo ciidamadii turkigu u diraa qadaanqadiyey aryaadhaha warka badan iska dhaafa jenaraal caydiid allah u naxariistay mug horow dagaal ka dhintay waryaa jenaraal galaal horta mabaayamuuda war korneel barahiila beryaa'unba mashageeya war waad waalantihiin jenaraal gabri goormaa la xidhi aryaadhaha horta geeda qorow intuu ku dambeeyaa la yidhi niman yahow waa leegabay ma rabin inaan idhaahdaaye abbaartayda ma ahayn inaan geed ka tiriyaaye hangoolkii gelmudug iyo rag baa dumiyey xeerkii shiina iyo carays baa ka dhigay waqaf la doontaa sidaa laga lahayn bay dadkii jaanta geliyeene baylaha noqoyey gabagii sidii hawshii qarankaane kuwaa heesla naaclaan arko aan wax qabanayne guurti adag haddaan looga qaban meeshan kalamaan ah afgembigii sugaantiiyo carqalad waan ka baqaya eebaagoo jamaalow haddii gabay dad lagu ganaaxaayo adigaa u baahan wax ku qabto walxamiir tiriyey warnimiyow may dheega jiray meeli tugaarka duma gurungaanka dhammaadana warnimiyow may dheega jiray meeli tugaarka duma gurungaa wilisheebanka dhammaadana hunkoolkii hoba bayatan hunkoolkale inka tabay walle jamaal waa laydiisa wax dhaama la waa waryaaneen waayahan af soomaaligii waa lagu ciyaaray ciyaalka hargeysa loogama horrayn dheendheen yartu dheendheen miyay dirsiyiin war idinkuba dhakacdhakac baad dhahdaane maxaad dhiindhiin ula yaabaysa waryaaneen warka hanaga dhex gelinine maalmaha facebooka waxaan ku arkayay rag raba inay xaaskooda ammaanaan oo ku soo qoraya wax ku dhaama la waa sida kelmadda ka muuqatana waxay la tahay inaan macnaheeda garanayn ee kelmaddu waxay tilmaamaysaa quus haddaan tusaale idinka siiyana adoo nal waaye haddaad faynuus shidato wax dhaamaad weyday nin dhar waayey hadduu dhugu xidhana wax dhaamuu waayey nin ilka beelana hadduu lafa gashado wax u dhaamoo waayey war lankii ana taree waaye hooba gaariga angriye wal dhaamo waaye war dawlad xuni dawlad la'aanay dhaantaa baa la yidhi nabadii nolol wax dhaama la waa maa ka wadaa war goonisitaanka somalilan wax u dhaamay weyday aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi ku qabatay iyo qadar allaba waa la qaataa markaa ninka odhanaya gacalisa wax ku dhaama la waa kuma qanacsanee wax uga roon buu waayey warnimiyo wali kale yaab leh nimantoo bilaanga ammaanan anti ereen dhoole iyo geenyo iyo ka heesayan marka bani aadan iyooley geenyo iyo dhool ma inis jeeyi dhoolay la'aanta dhulka ila wareego xirka ii dhawaaqo kaa dhowrsan maaye warwar ma haysaana xisbiyadii somalilan waxay ku heshiiyeen doorashadii waxaana dhexdhexaadiyey
guddi ka socda midowda Yurub waxaana lagu heshiiyey in la isku daro labadii komishin laguna siyaadiyo komishin ka socda midowda Yurub halka waxa iga muuqda inay midowda Yurub ay Soomaaliland aqoonsatay war cadaadiskii Ingiriiska Soomaaliland saartoon idin sheegay soo ma cadaan run ma warnamaya warmeesaane dunida waxa walwal ku haya cudurka halista badan ee coronavirus dawladda Sacuudigana maanta wixii Soomaaliya ku dartay liiska wadamada cudurka looga shakisan yahay waxayna dib u dhigtay waqtiga cumrada war Sacuudiga hadda ka horna waxay dhaheen Soomaaliya Rift Valley qabtaay maxay cudurka noola soo doontaan Sacuudiga oo karoodaadan qabin Soomaaliya ma qabteen naga leexa Allah dow yaana jaa'ifayna war doorada Sacuudigaba furqay qabtaa war waxa la yiri Allah carabta xoolaha ka qaada ma sanoo qayb war dhaqaatiir Soomaaliya oo ku nool magaalada Wuhan ee Shiinaha oo ah meeshii ka bilowday coronavirus waxay dhaheen dawladda Soomaaliya hanoo soo gurmato meeshaan hana la ka saaray dhaheen waxba hadaad sheegtay nin joogo Soomaaliya in loo gurmado waa mudan yahay war tuulada Xaaji Cali la yiraahdo Shabeellaha dhaxa ku taal dadkii lagu dilay waxa ka mid ah halkii dhakhtar oo deegaankaas ku noolaa war odayaashina kalamaan waxba ma socotaane kooxda kubadda cagta Real Madrid xaalad yaala looga badiyay sanadkan waxa uu maleena Jabooka Manchester City askale Allah ilaahay unugan dabada sariiban loo bari gasho sheekado naga qalda war carays waa kii balweyne beerta ka falanayay maxaan doo keenay farta garoonka markuu ka soo degay ma la baara war maxaa loo baara wasiir qadijo loo baarine war ninka ka xishooda xabadii afaraad waxa mar ka helay naga taga kaloore idinkuma dhace